aan sax ahayn ama aragti aan sax ahayn ayuu ku weydiinaya su-aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ah la yaabka lahaa oon weliba qof professor ay weydiiyey oo dee aanan ka filaynin inuu ilaa xadka uu magaranaysahay laga yaabo inuu narrative lagu celceliyey uu intuu absorb gareeyey uu qaatay oo dabeetana ay kasoo booday Somaliland dadka muslimka ah iyo kuwa gaalada keebaa badan marka dee waa su-aal kastoo lagu weydiiyana maaha inaad undermine garayso khalad ma aha laakiin qoyar wuxun baan ugu jawaabuun dadka muslimka ah baa badanoo waa 100% wax gaaliyana maba joogaan dabeetana wuxuu markiiba isaga ka soo boodaysaa war meeshan aad tagteen malaa dad muslimnimo taga maxaa idinka yara siya marka dabeetana adigu saad u fikiraysid markaas aad isagii ku celinaysaa marka dee markii keeskii Somaliland loo sharaxo inaan wax imanka uun go-ayo oo dowlad cusub oo imanka la yegleelayo aanay ahayn in aanay ahayn caadifad iyo wax imanka uun inugu dhashay inay ahayn wax qolada dalabkooda ku yimi oo aynu inaguna dhex qaadnay ay ahayd meel 35 sannadood dowladnimo soo dhisisay oo magaranaysa soo sustain gareysay oo nidaam dhistay oo dhaqaale samaysay oo adduunyada xiriir uga baahnayd oo wadamadii muslimka ahaana ka dhaga adeegeen inay u jawaabaan oo ay la sugeen mashruuca dhammaan waayay xamar ka socda oo dadna shacabka Somaliland ay aad uga niyad jabeen in wadamadii muslimka u soo jawaabi waayeen wadan aanay ka filaynin inuu soo jawaabay dawladda ku wada boodaan inay dee noqonayso waxa jooska kaliya ay shacabka Somaliland haysteen marka sidaa ugu soo sharaxdo qofkii xoreeyay waaya wadamada muslimka maxay ugu jawaabi waayeen 35 sannadood waxay uga dhiga adeegayeen